ku soo dhawow barnaamijka tartanka adeega bulshada waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn bulshada ay u qabanayaan noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxaa maalgelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan Ramadaan Kariim dhammaanba daawadayaasha barnaamijka ku taxan ee sida tooska ula socda waa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo uu soo qabanqaabiyo bankiga caalamiga ah Premier Bank sabarkaasina bisha barkisan Ramadaan ugu talagalay in dadweynaha afka Soomaaliya ku hadla iyo guud ahaan dadweynaha kale caalamka ku sugan ay ka faa'iideystaan waxa barnaamijka toddobaadkan ku tartami doona labada jaamacadood ee Francis Fanon iyo jaamacadda New Generation waa laba jaamacadood oo weyn oo runtii caasimadda Hargeysa ka tirsan labada jaamacadood waxaan si toos ugu gudageli doonaa bal adeega bulshada ku tartami doonaan waxaan isku soo dhaweynayaa barnaamijka qaybta horeysa ee tartanka New Generation iyo Francis Fanon waxaa hadda soo gelaya xarunta tartanka ardaydii ka socotay jaamacadda Francis Fanon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كأه أرديدا فرانسيس فان يونيفرسيتي ما أنت حاجة واحد نشوف لنا كيف قانون ترتينكا أديك بالشدة ومالجنيه بنكيجا بريمير بانك waxaa iyaguna hadda soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation بسم الله الرحمن الرحيم أنا كأه أرديدا jaamacadda New Generation waxaan ku tartamaynaa barnaamijka adeega bulshada oo maalgelinayo Premier Bank waxaad ku tartamaysaan waa tartanka adeega bulshada oo ay ka qayb galeen jaamacadaha ardayda jaamacadaha dalku runtii waxa aad samaynaysaan adeeg bulsho ayaad samaynaysaan adeega bulsho laba tiim baad kala tihiin oo laba jaamacadood ka kala socda cidda ku guulaysataa waxay u gudbaysaa wareegga labaad cidda ku guulaysataa waxay u gudbaysaa finalkii halkaasoo lagu kala badin doono barnaamijka waxaa maalgeliyey sidiisa Premier Bank waxaan runtii imika rajaynayaa inaan idinku wareejiyo waxaad ku tartamaysaan Okay, inoo akhri hadda tartanka adeega bulshada waxaad ku tartamaysaan in dugsi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba aad dayactirtaan oo aad ka dhigtaan meel waxbarasho ku habboon lacagta aad haysataan waxa ay ku jirtaa bushqadda waxaad haysataan 24 saacadood oo ka bilaabmaysa marka warqadda leydin dhiibo okay hadda laga bilaabo waxaad haysataan 24 hours haysataan hawshu waa idin bilaamatay runtiidina jeenaya guliyo gobonimo tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon ayaa waxa ay hadda qorsheynayaan maareynta hawlaha laga rabo iyagoo isla markaasina doortay gudoomiye cusub isla markaasina kooxdoodana u sameeyay magac cusub maadaama arrinka la inoo dhiibay la doonayay magaceedu inay iswaafaqaan si fiican arrin dhinaca ka yar taabanaya magac dhinaca ka yar taabanaya la idhaahdo haygabin ma sha Allah oo isleeyahay way iswaafaqi doonaan waxa la inoo dhiibay bayna tahay laakiin adiga xamsi maxay kula tahay أو فكرة كذا معاي وكسب بحيا وايو وحين قبلنا ما تهاي بالكي باهي قاركها يهاي قبل ملك ليري ما شاء الله ما عاش على أساس السكول عادنا إن شاء الله tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation ayaa iyaguna qorsheynaya sidii ay u maareyn lahaayeen adeegyada laga rabo inay u fuliyaan bulshada isla markaasina waxay sameynayaan wadatashi ay kula baxayaan magac cusub waxaanay doorteen gudoomiye magaceena oo kale ka warama magaceena hadaynu bixino kalkaal aritaan xamda aritaan magaca runtii waan ku qanacay kalkaal ama sidoo kale waan ku qanacsanay magaca bas waxaan bixinaynaa kalkaal guddoomiyana kale xamsa kale isaga inoogu weyn soo xaga garka markii la qato magaasaa guddoomiye ka dhigaa insha Allah أنا ذي كوير لبضة ma ilaa insha Allah la guddoomiyaa waa isku raacday insha Allah هذه بسنتين شركة هذه دكتين marka istaadkii labaad baa ku xigto ah inaan doorano gudoomiyaha saddexdeena qofka gudoomiyaha noqono waxaan jeclaan gudoomiyaha ka dhigana Axmed
aniga Way ku raacsantahay. waa caadi Ku qanacsantahay inuu hilka noo qanacsan. qanacsantay inaad noo noqotid haddii biri noqoto aan aqbalayna insha allah. falanqayntii ay sameeyeen kadib waxa ay tartamayaashu u dhaqaaqayaan howlihii ay qorshaysteen waxaanay bilaabeen inay baabuurtooda fuulaan markana waxaa tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon waxa ay bilaabeen raadinta ciddii ay adeegga u qaban lahaayeen geestoodana tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation ayaa iyaguna bilaabay raadinta ciddii ay adeegga u qaban lahaayeen wareerka adduunka wadba ka dambeeye wacdiga adkeeya tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon waxay la kulmeen mas'uuliyiinta dugsiga ay dayac tiri doonaan geestoodana tartamayaashii iyaguna ka socday jaamacadda New Generation waxay iyaguna la kulmeen mas'uuliyiinta dugsiga ay dayac tiri doonaan tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon waxay eegayaan duruufaha iyo xaaladda ku gadaaman dugsigan ay dayac tiri doonaan bal aynu eegna sida ay ahayd xaaladiisu markana tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation ayaa iyaguna waxa ay eegayaan isla markaasina fiirinayaan bal siday tahay xaaladiisu dugsigaasi ay dayactirka ku samaynayaan bal aynu eegno tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon waxay bilaabeen inay gudagalaan hawlahooda isla markaasina ay dayac tiraan dugsigaasi waajibka ilaahay waqtiyada salaada waysadeeda qaata wadiiqada qaloocan waxyeelada ibliisku dhinacoodana tartamayaashii ka socday iyaguna jaamacadda New Generation waxa ay bilaabeen fulinta dayactirka ay ku samaynayaan dugsigaasi wadiiqada qaloocan waxyeelada ibliisku warar bay ku gelisaa محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة tartankan waxaa lagu magacaabaa tartanka adeega bulshada annaga waxaan ka soconaa jaamacadda Francis Fanon waxay tahay shaqadayadu inaanu rehabilitation ku sameeyno school baahiyaha gaarka ah qabo wad arkaysan afarta wallpaper kala duwan yihiin halkan waxaad arkaysan maxay ku yaalaan kubaddi halkan waxaad arkaysan inay ku yaalaan bahalkii daayeer iyo kala duwan waxyaabaha sababtuna waxa weeyaan wax kale maaha in maskaxda ciyaalkan ku mashquulino oo ciyaalku intii ka duwan carruurta kale wax weyn carruurta kale mentally-googu waa sax laakiin carruurtan kale mentally-googu sax ma waxaanu soo gabagabaynay muddadiina loo qabto ahayd 24 saacadood waxaan kusoo gabagabaynay waxqabadkaygii ahaa muxuu ahaa inaan dayac tirno iskuul ka mid ah iskuulada dadka baahiyaha gaarka qaba kaas oo aanu dooranay inaanu wax ka qabano iskuulka dadka aragga naafada ka ah waxaan kaloo u mahadcelinayaa qolada Brank Ban oo hawshan adeega bulshada
ka dambeysay waxaa kaloo nu mahad celinayaa ardayda maasha allah qiimaha le ee jaamacadda Franciscano oo iyaguna hawshan maasha allah samaysay nagu noqotay maasha allah surprise-ka alxamdulillah ilaahay baa mahad leh dhammaan marka halkan waxa weeyaan centerkayagii waxa weeyaan centerkan waxa la yiraahdaa Haygabin iyo tacaawin group oo loogu adeego caruurta baahiyaha gaarka ah leh ee autism-ka iyo gelinka dambe oo loogu adeego maxay ahayd indhoolayaasha da'da yar waxa kaloo runtii aan u mahadnaqayaa bangiga Premier Bank oo runtii mashruucan maalgeliyay tartankan ardayda ah ardaydana waxaan u rajeynayaa haddii Ilaahay yiraahdo inay noqdaan kuwii tartan bay ku jiraan tartankan ku guuleysta oo waxqabadkoodu noqdo waxqabadkii ugu fiicnaa bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan soo dhaweynaynaa waxqabad ballaaran oo ay fulinayaan ardayda jaamacadda New Generation magaalada Hargeysa oo runtii uu fankeedana bixinayo Premier Bank bangiga caalamiga Premier Bank ardayda iyo maamulka iyo Premier Bank aad baan u soo dhaweynaynaa waa waxqabad runtii ididiila leh oo abuuraya rajo mustaqbal waxqabadkaas oo ah in qayb ka mid ah dugsigii ay ku baranayeen ardayda baahiyaha gaarka ee aragga maanta lagu sameynayo dayactir ballaaran markana waxaa madasha soo galay tartamayaasha ka socda jaamacadda New Generation bismillaahir rahmaanir rahiim anagoo magacaygu yahay kalkaal volunteer action team kana soconay jaamacadda New Generation hawsha ay noo dirtay kuna tartamayna tartankan oo adeega arrimaha bulshada shaqada aanu qabanayna ee la noo dooray waxa ay ahayd kuna magacawneed inaan ku dayactirno muddo 24 saacadood hal iskuul oo ay leeyihiin dadka disability-ga ama baahiyaha gaarka ah leh kadib waxaanu go'aansanay inaan guud ahaan soo ururno xogta noo muhiimka ah marnana dhammaan iskuullada ay ku dhigtaan inta aanu ka gaari karno dadka baahiyaha gaarka ah leh kadib waxaan marnay ilaa 4 iskuul oo isugu jira ay ku dhigtaan dadka aragga naafada ka ah iyo dadka dhagaha naafada ka ah kadib markaan xogtii soo ururnay 9 habeenimo waxay mar labaad groupka wada fadhiisteen annagoo ka faa'iideysanay waqtiga kooban ee la nasiiyay inaan discuss karano kala dooranana baahiyaha iskuulada iskuul kasta aan soo marno waxaan isku daynay inaan ugu yaraan la kulanno macallimiinta ama la xidhiidhno qaar ardayda ka mid ah iyo waashmaanada iskuulka joogay ugu dambeyn dhammaantood markaan soo wada marnay waxaan ku qanacnay inaan qaadano iskuulka Sheekh Madar qaybta ay ku dhigtaan dadka aragga naafada ka ah iskuulka waxa ugu muhiimsan aan ku dooranay wuxuu ahaa dhowr shay oo kow ka mid ahaayeen dadka baahiyaha dadka leh dhibaatada aragga naafada ka ah waxaanu kow ku dooranay in iskuulku aad u burbursanaa guud ahaan 4 galaas ka koobnaa 2 galaas oo kamid ah loogaba guuray markii la arkay inaan dadkan aragga naafada ka aan ku dhigan karin waxa ay lahaayeen godad waaweyn oo dhulka daaqadaha aad u jajabnaa iyo siliiga sare oo aad u liitay waxa ay wax ku dhiganayeen xaaladda ay ku dhiganayeen waxa ay in samuradu ahaayeen kuwii hore isla markaana dhas badan lahaa markii aanu kala dooranay guud ahaan 4 galaas ay ku dhiganayeen kuna mar labaad bay groupka wada fadhiisteen waxay isku qiimeeyeen lacagta aanu haysanay iyo waxaan ku qaban karno waxaanu doonay 2 galaas oo kamid ah inaan focus ka saarno 2 galaas waanu kala hooyanay isla habeennimadkii subaxii hore waxaan ku soo kalaanay iskuulka waxa ay mar labaad groupka soo kaxaysteen injineerkii qiimeynta markii aanu qiimeynay injineerkina noo eegay waxaanu tagnay 7 subaxnimo suuqa waxaanu soo iibsanay alaabiin noo muhiimka ah isla 8 subaxnimo waxaan noo suura gashay mar labaad alaabtii keeno hawshana halkii ka bilowmatay markii ay miidiyu ka qaateen cadaymihii ay u baahnaayeen markii abaaro 4 galabnimo guud ahaan waxa soo idlaatay shaqadii intii ay shaqadu socotayna teamku labuha waxa mar walba teamka qayb ka mid kormeerisa shaqadu soo socoto waxa kala teamka qaybta kalena alaabaha necessary soo iibinayeen waxyaabahan wax ka qabanna waxa kamid ahaa dadka naafada ah waxa aad ugu dhiban jaranjarooyinkan dadka caadiga isticmaalaan iskuulkaasi wuxuu lahaa hal jaranjaro oo aad u dhiban oo ka koobnay ilaa 4 jaranjaro dadka aragga naafada kala dhaawacyada ku yaala aawadi mararka qaarkood ay ku turanturoon jireen waxaanu sameynay 2 kaabadood mid kamid ah waxaan ka dhignay slope-ka sahlaya qof kasta oo naafo inuu si fudud uga gudbi karo waxa kale aanu qabanay dhulka floorka hoose oo iyaguna godad lahaa waxaanu ka buuxinay godadkii intii sibir u baahnayna waan kabnay waxa kale aanu wax ka qabanay waxa kamid ahaa daaqadaha galaasada oo ugu yaraan 10 daaqadood kamid ah aanu bedelnay dhammaantood waxa kale aan wax ka qabanay kuraasta barkii dayactirka u baahnaa waa dayactirnay bar kalena waanu ku soo kordhinay annagoo ku miisaameynay dhaqaalaha aanu haysanay resource-ka noo muhiimka ah waxyaabaha kale aanu qabanay waxa ka mid ahaa ee teamku qabteen xilliga kuleelahoo la soo gelaya aawadii galaaska waxaanu ku xidhnay marwaxado waxaanu bedelnay samuradaha waxaanu isku daynay oo kale inaanu ka fikirin waqti xaadirkan dayactirka aanu ka fikirno waqtiga dheer waxaan u qaban karnay iskuulka waxaanu isku daynay materialka iskuulku ay u baahnaayeen inaanu soo iibino
guud ahaan badanka materialka ay ka mid ahayeen mashiinka brailka waraaqaha ay isticmaalaan qalinka ay wax ku dalooliyaan iyo usha ay ku socdaan badanka qalabka waxa ugu sokoysay Kenya meel laga heli karo markaan wareysanay maamulka iskuulka taasna waxayna siisay caqabad labaad bay nagu noqotay teemka nagu kooban laakiin waxaanu dooranay waraaqaha ay isticmaalayaan oo markii maamulka iskuulka wareysanay baahi aad u qabeen inaanu iibno rubuc sanad wax ku dhigma markii noo qiimeeyeen waraaqaha isticmaalayeen oo ilaa kamid aha 1,000 waraaqood ay kamid ahaayeen kadib waxaan u gudubnay inaanu iskuulka leer ku soo xidhnay iskuulka bilaa leer waqtiga kuleelaha la bilowmayo guud ahaan galabnimadkii waxaanu iskuulka u bilownay inaanu iibino qalabka nadaafadda oo goob nadaafad qalab nadaafad yaaleen may ahayn waxaanu nadiifinay iskuulka hortiisa oo dhan waxaan la soo iibinay qalabka dhulka lagu xaadho kuwa xashiishka lagu rido iyo waxyaabo kale oo u sahlayay in dadka naafada ay ku adeegtaan ee dhulka ku nadiifiyaan waxyaabaha kale aan wax ka qabanay waxa ka mid ahaa in aanu isku filnaysiinay kharashkii la nasiiyey iyo maxay ahaatooy waxaanu qabanaynay waa mahadsantihiin dhammaantiinba soo jeedinta wanaagsan oo idinku mahad celinaynaa waxaan bilaabi doonaa qaybtii su'aalaha oo aniga iyo asxaabtayduba idin weydiin doonaan su-aasha koowaadeen idin weydiinaya waxaa weeye kharashka la idiin dhiibay intee leeg baa idinka soo hadhay intaad hawsha ku fuliseen marka la eego bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qarashkiina loo dhiibay waxaa noo soo hadhay oo iminka net balance aanu haysanaa $10 iyo badh ayaa net balance noo soo hadhay oo aanu haysanaa wixii foojaris ahaayee aan wax ku soo iibsanay dhammaanna waanu sidanaa iyagoo dhammaystiran oo aan waxba naga maqnayn inay soo dhammayaa loo baahnaa mise inaad isticmaashaan baa loo baahnaa maya inaanu isticmaalaa loo baahnaa laakiin wax noo goynaysay noqon weydo oo transportationka intaanu suuqii u soo soconno ka soo soconnoba gaadhiga intaanu ku kaxaysanaynaba noomay noqon su-aasheeda labaad waa dad indhaha naafada ka ah dadka aad sheegteen inaad wax la qabanayseen kharashna waxaad geliseen sabuuradihii marka maxay uga baahnaayeen sabuurado dadkaasi horta guud ahaan sida cad umay baahnayn dadka aragga naafada ka samuradaha laakiin laba meelood baan ka fikiraynay markaan mashruuca qabanaynay mashruuca waxa la noogu diray face ujeedada koobaad la noo diray inuu dadka aragga dadka naafada ah laakiin iskuulka waxyaabahan ku dooranay waxa kamid ahaa inay gelinka dambe ku dhigtaan dad baahan macnaha dadka danyarta ah si frontier loogu dhigo quraanka iyo diinta marka qodobka aan ku dooranay samurada wuxuu ahaa in dadkii naafada markaan wax u qabanay ay kana mid tahay facility-ga glass looga baahay inuu samurad yeesho in loogana faa'iideysan karo project labaad ee dadka naafada ah in dadka danyarka inay gelinka dambe wax ku dhigtaan okay su'aasha ugu dambaysa intaanan asxaabteeda uga bixin leyd baad soo geliseen iyo damaanad qaadaya bixinta korontadaas mise bari maalin la isticmaali waayo oo kharashkaasi beerdarooba ay noqonaysaa waxaanu ugu talagalnay insha allah oo doonaynaa inaanu haddii ebeedmo insha allah sida caadiga anagu waxaanu nahay dadka bulshada u shaqeeya sida caadiga ta koowaad aanu ka fikirnayna iminka waqtigan aynu ku jirno maadaama ay tahay waqtigii kulaylaha islamarkaana ay noo sheegeen inay daaqadiina ka jajaban yihiin islamarkaana galaaska aan duhurkoo kale waqtiyada kulaylkoo kale aan la fadhihi karin sababtaanu marwaxada iyo leerhka ugu soo gelinay taasay ahayd talabaadna waanu ka wada hadlaynaa annagaaba ka wada hadlayno waxaanu jecelahay insha allah wixii aanu annaguna ku tari karno inaanu ku tarno maamulka iskuulkana aanu kala hadalno in leerhkaas la bixiyo insha allah iyo sida caadiga iskuulku maadaamuu dawli yahay sida qaybaha ofiska oo kale iyo leerhka loo bixiyo in loogu daro iyadana waxaan uga soo tallaalay halkii ofiska weyn uugaga jiray oo kale aan ugaga soo tallaalay marka insha allah inaanu kala hadalno taasna inoo qorshaysanto qorshahayagay ku jirtaa insha allah maamulka iskuulka okay bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantihiin kooxdiina kalkaal waxaad qaadateen inaad dayactirtaan iskuul ka mid ah iskuullada baahiyaha gaarka ah 4 iskuul ayaydun mid ka doorateen 1 iyo 2 sababtaad waad sheegteen inaad mid doorateen laakiin 1 iyo mid baad sheegi doontaan bal sababta aad u sii doorateen talabaad ma jiraa qorshe inkastoo saaxiibka Ismaaciil idin weydiiyey bar idinka weydiiyey idinku waad maalgelin baad ku samaysaan iskuulkaasi inaad maintain garaysaan amba leer ha noqoto amba wixii aad ka qayb qaateen inaad samaysaan ha noqoto ma intood maalgeliseen aad kaga tegaysaan mise waxaad ugu tala gasheen inaad maintain garaysaan oo waqti ilaa ka waqti kolba aad soo eegtaan wixii aad maalgeliseen inay sidii aad u maalgeliseen wixii u socdaan bismillaah su-aasha koowaad haddaan ka jawaabo ah maxaad ku doorateen goobta muxuu ahaye tirada aad soo marteen aad uga doorateen waxay ahayd waa run waxaanu marnay tira ahaan 4 goobood baanu marnay sababtaan uga dooranayna waxay ahayd inaan
markaan indhayn ku sameynay waxay noqotay goobtii ugu muhiimsanayd ee ugu baahida ugu badan qabtay meeshaasi iyadoo ay xusid mudan tahay inay maamulka dugsigu nala wadaageen inaan muddo wax dayactira loo samayn annagu markaanu aragnayna ay noqotay meesha ugu habboon ee ugu baahida badan leh ku fulin karno qorshahayaga sidoo kale meelahan waxaanu kaga dooranay iskuulkan goobaha kale waxa weeyaan qaarkood waxaanu tagnay inay meelo kiraa ku jiraan oo iska cusub oo ay hadhow tole berri ka maalinba laga saari karo marka inaanu maintenance ku sameynay inaan dib u hagaajino aanay muhiim ba ahayn meesha maadaama kiro ku tahay in berri tole laga saari karo haddaan dib u hagaajino waa sababahaanu ku dooranay talabaadna waxa weeyaan iskuulkii ma saasa kaga tegaysaan kagama tegayno marnaba kagama tegayno markasta waxaanu jecelahay inaanu ku soo noqon doono insha Allah oo mar walba waxaanu jecelahay magaalada Hargeysa ama meelahaanu joogno inaanu cidaanu isbarano inaanaan ka tegin inaanu ku soo noqono insha Allah waxaanu jecelahay inaanu inta karaankayaga aanu joogno inaanu insha Allah joogtayno oo mar walba u nimaadno insha Allah wixii facilities u baahan yihiin iyo wixii hawlaa inaanu ku garab joogno jecelahay insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantihiin kharashaadka aad u isticmaasheen dayactirkan guud ahaan muxuu ahaa guud ahaan waxaan isticmaalnay oo lagu wareejiyay kharash dhan $1,000 okay waayahay su-aashayda labaad waxa weeye laydhka oo kale haddaan dib ugu yara noqdo walaalkeen su-aashiisii mid u dhow maxay ahaydee laydhka qolada maamulka ee dugsiga gacanta ku haysay markii hore baahid maxay ahaydee wuxuu muddadaa meesha ay dadka dhibaataysan wax ugu dhigayaan ee marawaxad u baahan ee bulshada inteedii nuglayd ah maxay ahaydee sababaha ay iyagu uga fikeri waayeen ama markii dambe had iyo jeer laydhka marka la soo xidhayana cid baa mas-uuliyaddiisa qaada markaa mas-uuliyadda ma idinkii maxay ahaydey maalgelinayay ayaa mas-uuliyaddaa qaaday mise qoladan maamulka ee meesha joogtay ayaa maxay ahaydey hawl ay ka gaabiyeen oo iminka markii loo dayactiray mas-uuliyad iyagu ay la wareegayeen oo ayay ahayday ku qornaayeen aad baad u mahadsantahay marwo waxa weeyaan mas-uuliyaddii marka koowaad waxaana lagala wareegay maamulkii guud ee iskuulka ayaa yidhi annagaa mas-uul ka noqonina maadaama marka horeba iskuulka lawr ku tallaalay meeshan uga soo tallaalay dee ay meesha iskuulku intao aanan saacad gaar iyo wax u samayn oo ay isla iskuulku tahay talabaada kalena waxa weeyaan waxay ahayd gaabis xaggooda ka jiray oo iskuulka waxay noo sheegeen inay in badan u dalbanayeen qaybtaas indhoolayaasha ama dadka aragga naafada ka ah qaybtooda inay in badan mashaariic u dalbanayeen islamarkaana maalin dhoweeda xitaa madaxweyne ku-xigeenku iskuulka yimid ay kala hadleen in qaybtaas dayactir lagu sameeyo islamarkaana ay in badan u baahnaayeen iyaguna ay doonayeen cid u gelisa iyo hawlo waxay ugu geliyaan ay iyaguna raadinayeen in badan u raadinayeen buu noo sheegay mas-uuliyaddiisiina iyaga ayaa nalalaga wareegay insha Allah dibna waan isku noqon doonaa insha Allah su-aasha ugu dambaysa waxa weeye su-aal baan ku soo noqonayaa haddii laydinka guulaysto haddii bay dhacdo in laydinka guulaysto maxaad isleedihin waa laydinkaga guulaystay gruubka idinla tartamaya hadday idinka guulaystaan kama soo qaada inay idinka guulaysteen maxaad isleedihin waa laydinkaga guulaystay oo barnaamijkiina ka dhiman aad baad mahadsantahay horta activity kastaad qabanaysaa weakness iyo strengths baad ku yeelanaysaa waxaa hubaala inaanu inta badan inteydii wanaagsaneed ka sheekaynay ugu yaraan annagu inkastoo aanan rajaynayna noo guulaysta laakiin haddaan isleenahay waa laydinka guulaysan doonaa waxaanu isleenahay waa laydinka guulaysan doonaa ugu yari malaha waxa weeyaan $10 aanu soo reebnay maxaad u isticmaali weyn taalo $10 wax kale umaanaan soo reebine xisaabtu markii ay socotay bay dib u soo hadhay waana $10.5 waxaan ku kharash gareynaa waan weynay waxaanu isleenahay in iskuulka ka tegina annaga steem kormeera markaan kormeerna laga yaabaa qalabka nadaafadda aad ka qiimaha jaban wax iska bedelaan taa ku kharash gareeya ana intaasan su-aasha ku soo koobay aadna wad mahadsantahay dhammaantiin mahadsantiin markana waxaa madasha soo galay tartamayaasha ka socda jaamacadda Francis Fanon magacaygu waxa weeyaan Xamse Axmed Yuusuf gudoomiyaha kooxdayda magaceeda waxaa leedahay Gabin waxaan matalaynaa jaamacadda Francis Fanon University waxaanan ku tartamaynaa ama shaqadeeda waxay ahayd inaan goob waxbarasho ama dadka adeegyaha baahiyaha gaarka qaba
aan goob waxbarasho amba galaas ay leeyihiin aan dayactir ku samayno waqtigan la siiyey wuxuu ahaa 4 saacadood lacagta loo dhiibeyna waxay ahayd ay bashaqada ku jirtayna waxay ahayd $1000 haddaan ka sheegay hawshaysay u bilaamatay waxaanu bilownay 7 habeenimo bilownay shaqada bilownay shaqadeedu way noo bilaamatay anaku oo shaqada si fiican bay noogu socotay meeshaan tagnay waxaan ka bilownay meeshii indhayno aan meeshii si ahayd eegno meeshaan tagnay qolkaan tagnay waxa qol maran oo caruurta lagu talagalay in ay wax ku bartaan waxna meel qaybna ku ciyaaraan laakiin facility lagu talagalay qolkaan mu oolin qolku roog kaliya yaalay gidaaradu way marnaayeen xabad samuurada qolka taalay haddaba anaku maxaan qolkii ka bedelnay qolka waxaan ka bedelnay horta markii ugu horreysay qolka waxaan ku dhajinay wallpapers waxa la yiraahdo wallpapers ka waxyaabahan ku dooranay waxay ahayd caruurta waxay ka cabanaysay Down syndrome and autism xanuunadana way ka duwan yihiin xanuunadii kale marka caruur haddaan tusaale ka soo qaato qofka Down autism koo kale meelaha bright environment-ka ah abnormality amba kuma soo baxo amba uu necab yahay soo waxaan maskaxdooda ku degtaa kalaarada bluega amba greenka soo anagu waxaan u sameynay wallpaperskaas waxay ka koobnaayeen hadday blue tahay hadday green tahay way kala duwanaayeen ee waxyaabo ku sawirnaayeen laba waxaan keenay meesha toys lagu talagalay caruurta yaryar in ay maskaxdoodu isku bedesho amba imaginationkooda ku shaqeeyo laba waxaan keenay buugaag caruurta lagu talagalay caruurta baahiyaha gaarka ah qaba saddex waxaan keenay meesha afar waxaan keenay meesha kuraasi ay ku fadhiistaan anagu meesha shan waxaan keenay first aid kit kaas wuxuu ahaa caruurta dee hadday maskax ahaan xanuunsanayso waxyaabo way isgaarsiin karaan marka in lagu daweeyo si degdeg ahaan lagu hagaajiyo ayaan u keenay shan waxaan keenay bahal la yiraahdo trombolinkaas waxay qabataa marka loo eego dadka caruurada Down syndrome-ka amba autism-ka maskaxdooda iyo murqahoogaba si fiican bay u koraan amba development-ka maskaxdooda u shaqeeyaan saddex waan keenay buugaag ay wax ku sawiraan oo maskaxdooda development ahaan kor u kacanaysa waxaan keenay ay baadho ay wax ku qorqori karaan oo caruurtu si fiican maskaxda ahaan waxaas oo dhan waxay ahayd in maskaxda caruurta kobcino ta kale aan keenay waxay ahayd waxaan ku soo dhameynay shaqada waqtigu nagu yaraa oo aad waqtigu nagu koobnaa shaqada waxaa noo hirgeliyey ama noo fududeeyey maamulkii meesha joogay waxaan weydiinayaa meesha aad doorateen ee ay caruurta baahiyaha gaarka ah qabi ku jireen imisa meelood baad ka doorateen waxaan ka dooranay ilaa 3 iskuul oo ka mid tahay indhaha dhagaha iyo bahalkii dadka physically ee curyaanka ayaan ka dooranay iyaga oo autism iyo Down syndrome qaba goobtana magaceedu maxaa weeyaan goobta doorateen waxay Gami Center baa la goobta waxay ku taalaa 100 jire marka imisa meelood baa ku yaala Hargeysa oo baahiyaha gaarka iskuulada baahiyaha meelaha xarumahaas horta inta badan way yar yihiin markan aan ku leeyahay yar yihiin waa tira aan dad 10 gaadhayn horta inta wadanka ku yaalaba dadka baahiyaha gaarka ah qaba tan laakiin waa tay specific u ah dadka autism-ka iyo Down syndrome-ka qaba mid kale oo dadka autism-ka iyo Down syndrome-ka qaba wadanka ku talaamashto waxa tiraahdeen mar laba meelood baanu ka dooranay baa tiraahdeen marna saddex marka horta iskuuladan baahiyaha gaarka ah leh waxa jira qayb maqalka ah waxa jira qaybta aragga ah waxa jira qaybo kale oo maxay hayday maskaxda ah oo dhowr ah waxaynu ognahay qaybta dawladda xagga dawladda oo kale dhakhtarka weyn qayb dadka waalida abaa jirta oo macnaheedu hadii laakiin inkastoo iskuul tani sorry waxa jira special needs ka qoladan kale la yiraahdo iyaguna qoladan caruur baa halkaana joogta marka maadaama oo centerkani uu yahay sidaan anigu ogahay center private ah oo gaar loo leeyahay maxay hayday oo dad diaspora ah ay maxay hayday ay gacanta ku hayaan miyaanay jirin qaybo kale oo naafada ah oo caruuri joogto oo maxay hayday uga sii baahan maalgelinta waa su'aal fiican waxa jirta markaan caruur ka hadlayno waxaan nagu dooranay caruur bay ahaayeen saad sheegtay waa run dad baa fangareeya laakiin iyagu qudhoodu waa tabarucaad dad isku geegeeyay weeye iskuulkana waxba lagama qaado waa free dadka dhigtaana waxay u badan yihiin dad dan yara mid labaad waxa jirta iskuulkaasi waxaan iskuulada kale kaga door bidnay iskuulka 10 qof oo kaliya ku jira 10 qof si lagu jiro dadka autism-ka
qofka caadiga macalinka caadiga waxba uma dhigi karo macalin tababaran oo ku tababaran ayaa loo dhigaa marka labadii qofba hal macalin baa u dhiga marka taasina waxay ka qayb qaadanaysaa meesha markastoo ay kooban tahay markastoo qalabkaad u soo iibinaysa uu ka anfacad badan yahay laakiin markastoo meesha konton qof noqoto waqtigii kugu yar yahay lacagtii kugu yar tahay arday aad tahay gebigiisu 4 saac haysta waa kugu yaraanayaa inaad meeshaas si fiican wax uga qabato okay su'aal toosan idin weydiinaya idinku saddexdiinani qaabka isku doorateen waa qaab cinkeeya sama laga yaabo haddaydun inan ku darsan lahaydeen qaabkaad u shaqaysteen qaab ka fiican idinla shaqayn lahayd oo idinku dari lahayd su-aasha kale idin weydiinaya waxa weeye $1 baad sheegteen ayaa laydinku maalgeliyey idinkuna $1 baad ku hawl gasheen $1 sidii ugu saxsanayd ma u isticmaasheen waxba idinka soo hadhay wax dheeriyaad ku darteen bal taadna waad noo sheegi doontaan بسم الله الرحمن الرحيم سؤاشنا ويدي مدنه مركا كوباد waxay ahayd hadii leedii ka bedeli lahaa memberkiina kamid oo lagu bedeli lahaa gabar dumar ah miyuu wax qabadkiinu iska bedeli lahaa ku dhaweey miyuu wax qabadkiinu wax iska bedeli lahaa horta wixii qadara allun baa og hase yeeshee waxa annagana soo xushay maanaan hayn annagu dad is xushay maanaan hayn waxaana xushay jaamacadda aanu ka soconay in matalan ayaana xulatay that's why waanu ku qasbanayn kolba groupkiina loo kala qaybiyo amba sidii kooxaha la isku kaya raaciyo inaanu amarka u qaadano isla markaana su-aasha labaadna weydiisay waxay ahayd miyaad u isticmaasheen $1 laydin dhiibay calaa atami wajh horta marka loo eego waxqabadka meesha aanu ka qabanay marka loo eego waxqabadka meesha aanu ka qabanay waxaanu isleenahay waxqabadkiina waxay istaahishaa aad qabateen lacagta laydin dhiibay lacag ka badan waxaanu ku minimize garaynay kharashka iyaga khasaaraha iyagii shaqada intii ugu badnayd heavy liftingkii installationkii waxyaabihii oo dhan annaga ayaa gacanta ku qabanay that's why waxaanu aaminsanahay boqolkiiba dheeraad inaanu lacagtiina loo dhiibay aanu calaa atami wajh uga soo baxnay marka labaad walaalkii waxaan ku darsanayaa jawaab yar oo markii ay marwadu weydiisay waxaan jecelahay maadaama meeshu diaspora gacanta ku hayso meel kasta oo furan oo baahiyaha gaarka oo furan qofun baa gacanta ku haya dadka meesha ku nool iyo dadka meeshan kala jooga wax loogu dhigaya annaga way noo sinaayeen maadaama waqtigana la siiyay ahayd only 24 hours waxaanu markaa doonaynay in meesha ugu fudud allahumma salli calaa sayidina maxamed uguna baahida badan oo inaan soo wada tirakoobi karayn dadkaasi lacagtana loo dhiibayna sida ugu fara badan uguna fiican aan ugu isticmaali karano iyadoon islahayn dadka meesha maamulka ka ahi facilitation fara badan ayadiin abuurayaan sidaa daraaddeed baanu ku xulanay meesha waa mahadsantihiin su-aasha ugu dambaysa idin weydiinayaa jawaabihiina waxaa iga muuqda meeshii idinku hawl fududayd inaad geliseen lacagtii waxaad tilmaanteen tirada kalaaska inuu 10 qof yahay waxaad sidoo kale tilmaanteen inay jiraan xarumo kale oo kalaaska ilaa 50 qof ay fadhiyaan marka meeshii baahideedu ay koobnayd dhaqaale iyo resource fiican haysatay idiin fududeed shaqada ma la odhan karaa ayaad hawshii geliseen oo maydaan gelin meeshii dhaqaale ahaan ugu baahida badnayd waa su-aal fiican markaad leedahay meel idiin habboon ayaad idinku doorteen horta number 1 meesha caqabad baa taalay meesha research ma yaallo waddanka ah cidda baahiyaha special needska qaba uu ku qoran yahay meel laga dheegan karo timekoo nagu yaraa awgeed midda labaad goobtu may ahayn goob ay yaalaan facilities ay wax ku dhigan karaan that's waan kuu sheegay markii hore waxaan ku yiri 10 qof waxa loo doortay qofkii maamulka ha waan weydiinay 10 qof oo kaliya aad haysaan meeya tira ilaa 100 qof ka badan baan haynaa laakiin macallimiin uma hayna bay tiri iyo agab iyo meel wax ku fadhiistaan meel wax ku bartaan that's why aan u qaadanay aan u dooranay meesha okay iskuulada kale marteen baahi ka daran ma qabeen kuwan iskuulada kale marnay marka loo eego indhoole iyo waan ku kala qaaday physical iyo mentally kuwan uu laftooda kuwan baan ka hadlayaa kuwan mentalka mid kala mentalka ag physicalka iyo mentalka marka special needska labadaas loo kala qaybiyo qaybtana ka daruurisan kana baahi badan mid kale ma jira qaybtan baan ka hadlayaa isla qaybta doorateen meel kale oo lagu hayaa ma jirta Hargeysa mayi Hargeysa inta xoogaalkayga hal mar ma isku raacaya waa mahadsantihiin labadiina tiimba waxaanu kusoo gabagabeynaynaa 2 su'aalood oo isku mid ah labadaas su'aalood waxaan ka codsanayaa inaad jawaabta koobtaan oo su'aashun ku ekaataan jawaabteeda su'aasha koobaad waxay leedahay habka aad shaqada u qabateen markaad eegtaan tiimka kale ee isla shaqada laydin diro kale loo diray
maxaad kaga duwan tihiin ood kaga guulaysan kartaan kaas waa su-aasha koobaad su-aasha labaadna waxaa weeye waa tartan meeshii qolun baa guulaysanay qolona waa laga guulaysanayaa haddii la idinka guulaysto maxaad is leedahay waxaas iyo waxaasaa la idinkaga guulaystay ta koobaad waa maxaad ku guulaysateen haddaad guulaysataan ta labaadna maxaad ku guuldaraysan kartaan haddii la idinka guulaysto bismillahi raxmaan raxiim aad baad mahadsantihi finaliska iyo tiimka loo tartamayada guud ahaan Kalkaal Frontier Action Team waxaanu isleenahay waad ku guulaysan kartaa activity-ga aan qabanno waxaan ku qabanay teamkii la misay wada koobaad iska jawaabta la misay waxaan ku gabagabeynay saacad hor waqtigeedii sida gudoomiyahooda talabaad aan isleenahay waad ku guulaysan waxaa kooka ah habka aan waxa qornay oo ahaa inaan dhammaan iskuulada wada marno fadhiisano kala shaqeyno kula doorano iskuulkan dooranay baahiyihii ka jiray deecalaantii saddexaad aan isleenahay ku guulaysan kartaa waxaa kooka ah wax qabadka aan qabanay oo iskuulka lagumada aqoon wax kaabad isla dadka baahiyaha gaarka ka bixi karaa taasaanu sameynay kow shayga koowaad isleenahay waa laydinkaga guulaysan karaa waxa weeyaan $10 iyo barkaan lagu soo haray ayaan isleenahay waa laydinkaga guulaysan karaa idinka way bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaan ku guulaysan karnaa haddaan idhaahno tiimka kale kaga guulaysan karnaa number one waxaanu dooranay special leaderska qaybtii mentalka ahayd oo caruura ilmaha caruurtaahi markuu yar yahay haddii lasoo kacan qabto oo dhaqankiisa iyo habdhaqankiisa la bedelo hadhow wuxuu noqon karaa qof noloshiis ka difaaca oo qeyrkii kaga gala talabaadan kaga guulaysan karnaa waxa weeye lacagta ay tiimkayga saaxiibkada ay soo celiyeen lacag ka badan baan soo celinay anagu waxaan soo celinay 160.54 senti ta aan waxyaabahaas leenahay waa laydinkaga guulaysan karaa anigu imika horta waxba iima muuqdaan is leedahay waa lagaaga guulaysan hadda guddiga ayaa ku dhawaaqaya ciddii laga badiyey ee tartanka ka hadhay bal aynu daawanno waayahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin waa guntii iyo gabagabadii barnaamijkan caawa labadiina tiim iyo waxaad soo kala qabateen iyo kolley midkaan isleenahay uu soo baxay iyo midka caawa waa ku haray goobtan aan isleenahay kadib markaan isla eegnay guddi ahaan annagoo dhammaan qadarinayna dadaalka aad iyo aad ka wanaagsan aad soo qabateen waxaan isleenahay tiimka caawa goobta ku haray waxaa weeye tiimka guuldaraystay waxaa weeye tiimka haygebin waad mahadsantihiin waana dadaasheen dhaqaaqina saaxiibadiin hambaliyeeya si idinkoo qoslaya oo faraxsan u hambaliyeeya aad bay u mahadsan yihiin guushuna ma istaagto haddii maanta lagaa guulaysto maalin kale aad guulaysan kartaa aad buu u mahadsan yahay guddida jaajka iyo daawadayaashii martiqaadka waan u hambaleynaynaa de horta kolleyba labada nin midun baa guulaysan lahaa guulna laba nin kama wada qosliso waan u hambaleynaynaa aad baan idin mahadsantihiin insha allah guul baan idin rajaynaa daawadayaal intaasi waxaan kusoo gunaanadaynaa qaybta hore ama gabagabadii barnaamijkii tartankii dhex maray labada jaamacadood ee New Generation iyo France Finance oo ahaa laba xalqadood oo kala dambeeyey runtiina dadweynuhu ay si fiican uga dhugteen barnaamijyadii ay ku tartamayeen sidii loo kala saaray iyo hawshii cusleed ee guddiga garsoorka ay barnaamijka ka qabteen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa howlwadeennadii iyo garsoorkii kala duwanaa barnaamijka ku kala garnaqay iyadoo labada kooxood ay soo bandhigeen runtii barnaamij aad u qiimo badan oo ay adag tahay runtii in la kala saaraayay waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya iyaguna labada jaamacadood tartamay si gaara waxaan mar kale u hambalyeynayaa jaamacadda New Generation oo nasiib u heshay inay noqoto guulaystaha barnaamijka tartanka adeega bulshada ee habeenkan caawa waxaan dhammaantiid ku dhaafaynaa waa dhinaca halabuurka barnaamijkan Professor R iyo dhammaan bahloodin kale barnaamijka qayb qaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh